aad iyo aad uga soo caan baxay geeyga Soomaalida isla markaasina aad loo jecel yahay xamta ku soo dhaw ugu horeen caweyska VOA aad baad u mahadsantahay sagal Mustafa Xasan Nuur barnaamijka caweyska VOA aad baan ugu dhawahay xamda markaynu intaas kaga nimaadno bal waxaad ugu horeen aad warbixin naga siisaa fankaaga goorta dhalatay halkaad ku dhalatay goorta fanka ku soo biirtay bal warbixin yar oo kooban aad baad u mahadsantahay sagalay walaalo anigu waxaan dhashay 1993 waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa halkaas aan ku barbaaray halkaas aan wax ku bartay halkaas baan joogaa aad iyo aad fanka goormaad ku soo biirtay walaal waxaan ku soo biiray fanka 2009 laakiin fankaygu wuxuu buu soo shaac baxay amaan shaashadaha ka soo muuqday 2012 ugu horreeyay marka intii aanad fanka ku soo biirin ma jirtay hibooyin kale ama hidayaal familigiinu lahaayeen maxaase kugu dhaliyay baad oran kartaa inaad fanka ka mid noqoto wallahi hibayaal way jirtaa oo dee habaryarahay aduu family laakiin hidaraaca ma qof abwaano soo shaac baxay ama dad aan oran karo dee hibadooda faneed ama suugaaneed way soo muuqatay ma jiro laakiin wuxuu baan oran karaa aniga ayaa iska jeclaaday fanka aadna u jeclaa anigu xaqayga ka imi waxaag bal waraysiga dib ayaynu ka dhigan doonaa heesahagu way tiro badan yihiin inkastoo wada calaacal iyo jacayl iyo wax fara badan ay u badan yihiin qalbi daadka caashaqu dacalada ka soo galay ayaan waayay dabar iyo darbi lagu cesho adag heeso fara badan heesti qumane heeso fara badan ayaan caweyska ugu talagalnay dadweynaha balse heesta kuwada jeclaan lahayd inaynu ku furanno maxaa aad jeclaan lahayd xamda walaal waxaan jeclaan lahaa waxaan noo soo qabanayaa heesahayga hees kamida oo ereyada leeyihiin abwaan Sidiiq Burmad laxankana waxa saaray Maxamed Miir Xaaji heesta waxa la yiraahdaa heesta qumane weeyaan qumane waa heesta aad iyo aad dumarku aad run ahaantii aad moodo inay isku wada dhayaan qabso oo naftayda ilow qalad ku soo gaaray aad iyo aad xuma qoysninkaad wada dhisteen hadana qaatan حما كذا قلبيga siisayo qiimo laga waayo quruxdaada kaad hootiro wali qadaabaysta waqolaali meel kale ka jecel qalanka loo hooyay ya salaam waxaag heestaasi qumane oo runtii dumarku aad iyo aad ay isugu dhayaan xamdaay oo raggana in badan oo kamida ay ka careysiisayo u qolaali meel kale sagalay warna waxa jirta walaalo horta rag uma wada xuma laakiin heestaas wuxuu bay tusinaysaa nin intuu gabadhiisii waxaan ku isagoo gabadh qaba meelaha waxaan ku daluuqyada ku badan taasay ka hadlaysaa laakiin daraga waxa leenahay caroonina heestu inta xuun bay saameynaysaa qaybta dambana qofkii bay la hadlaysayo ay leedahay niyada u dhisay leedahay qabso oo naftayda ilo qalad ku soo gaaray qoomamadu lugtay ka xidhaa waana ku qabataa aad iyo aad wax ka baro qardoofaha ninkii lagu qasaaroobay dadii dhacdiyo waayahana meel ku qora gaaray heesihii aadka loogu jeclaa sanadadani ugu dambeeyay markaynu intaasi kaga nimaadno dadku waxay isweydiinayaan xanta kuwiin waa qof shakhsiyad nooceeya kulay anagu waanu garanaynaa shakhsiyadaada inaad runtii had iyo habeen qof qosol badan aad tahay dadku shakhsiyad nooceeya ay kugu tilmaamaan adiga laftarkaagu qof nooceeya isku la muuqataa mararka qaarkood wallahi walaalo dadku badanaa waxay ku tilmaamaan waxay ku dhaadaan qof wanaagsan baad tahay qof dhowrsan baad tahay qof edeb badan baad tahay de wuxuu baan isla markaa amaanta ka buuxso weelo amaanun baan u qaataa sagalay kala daan wuxuu baan soo haystaa qof bulshadayda iskaga dhex jirto oo iska caadiya waxa tahay qof caadi u man isdhaahda waxaag markii aad soo shacbaxday markii hore intii aanad soo shacbixin iyo imika marka soo shacbaxday dadku aad aragteen ku wada garanayaan oo mararka qaar kood aad suuqa mari kari weydaba farqi nooceeya u dhaxeeya adigu sakeeba doorbidi lahayd markii hore intii aanad fanka soo galin iyo imika keebad sadahda wallahi darajadii loo baahnaa wad gaar wallahi sagalay horta walaalo la isma barbar dhigi karo qof caan iyo qof aan caan ahayn horta aad baan u farxaa marka meel kasto oo istaago meel kasto oo marayo Hargeysa ma ahay meel kasto oo ka Soomaali joogta xamda kuwiin ee la istaago wallahi waan farxaayo waxaan tiraahdaa aad iyo aad
marmar aad waxaan ku sida dadka caadiga ah ee hablo waxaad iska arkaysaa suuqa iska mariyo iska de adu ma mari kartid marbaad tiraada talow hadaan lagu garanayo imka meelahaas iska mari laydo aad iyo aad marka caanimaduna way wanaagsantahay labada siyoodba waa laba siyood oo loo baahan yahay dadka caanka ah mar walba way ka dhowrsan yihiin dadka kale meelo dadka kale ay maxaan idhaahdaa geli karaan baan geli karin oo caanimadu ay ku xidhaysaa waa hagaag xamdi marka laga yimaado dhinacaasi caanimada markaynu ka nimaadno maxaad is leedahay adigu fanka waad ku soo kordhisay ama fanaaniinta kale ee gabdhaha kula mid ah heeso waad kaga duwan tahay sagale aad baad mahadsantahay walaalo kulli waxaan furan karaa in kastoo jiraan habla abwaaniina abwaanad meeshi talax tagtay laakiin waan isku dayaa heesahan waxaan ka saaraa ereyada waan isku yara dayaayo heesaan sameeyey marka taas maan isleeyahay xagga hablaha ee fankeynka joogo waad kaga duwantay waa hagaag heeso aad samaysay ama jiraan oo aad qaaday way jirtaa walaal heesan aan leeyahay ereyada oo laxankana saaray maxamed miir baa jirta oo la yiraahdo tawaawac waa hagaag heestaasi bal waxoogaa ma noogu luuqeyn kartaa aad iyo aad inta la muuntashaday inta hayoon qarsaday inta nafta tiiriyoon ku riday tubiyaha runta inteen ka tulaayay cadow inteen ka tidcaayay nacab inteen islahaa turxaantan ayaanay maradaadu tabin ya salaam ilaahay codkaa ku barakeeyaan ku leenahay xamda cabdikiinaan xamda kuweyn xamda heestaasi maxaad ku samaysay qiso nooceeya ama jawi nooceeya ayaad ka samaysay oo aad ku jirtay markaad heestaasi sameynaysay sagalay walaalo heestaasi waqtiga aan sameeyey xaalad aniga khusaysa bay ahayd dareen aniga iiga imi oo xaalada waqtiga ay haystay ayay ahayd dareenku aniga iiga imi marka wuxuu ma oran karaa waan cara qoray ama ciil qoray